Safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara ayaa VOA u sheegtay in dalka Turkiga ay ku nool yihiin arday 5 kun gaaraysa iyo waliba qoysas ka badan 14 kun oo ka kala yimid Soomaaliya iyo wadamada qurbaha. Safaaradda ayaa sheegtay in dhawaan ay hirgeliyeen adeeg cusub oo lagu magacaabo nageeye kaasi oo ah adeeg dadka Soomaalida ee gobolada Turkiga degan u sahlaya in warqadaha safaaradda ay ka doonayaan guryahooda loogu diro. Soomaalidu waxay ku kala fiirsantahay dhowr iyo 30 gobol oo Istanbul ugu weyn tahay. Dabcan dadka badankooda Ankara ay joogaan. Marka adeegadan u qabanno hadda waxaan sheegi karaa adeega nageeye oo ah adeeg online oo 20 casho jira. Coronavirus baa yimi waxaba khasab noqotay dadka inay soo iman oo ninku qofka gurigiisa joogo inta uu kari karo. Marka nageeye wuxuu nageynayaa dadkii guriga ku nageynaya. Safiirku waxa uu sheegay in inkastoo Soomaalida Turkiga joogta ay u badan yihiin kuwa nolol meesha ka abuurtay iyo kuwa fursado waxbarasho ka faa'iideysanaya haddana inay jiraan Soomaali badan oo dalkaasi u taga inay ka tahriibaan oo noloshooda ay halis geliyaan. horta dhalinyaro kaliya ma tahriibtee reera tahriiba dumar caruur wata tahriiba dad waaweyn oo odayaal tahriiba reer iska dhanba tahriiba caruur baa la tahriibiyaa waxaan booran karaa dhalinyaradu hadda waaba kuwa ugu yar ee tahriiba markaanu eegna dadka la soo celinay badaha laga soo celiyay laga soo badbaadiyo arintaas horta waa nasiib darro waana arinta walwalka ugu badan ugu haysa runtii. Safiirku waxa uu sheegay in Soomaalida tahriibaysa ay horseedi karaan in Turkiga uu fiisaha u diido ama uu ku dhibo Soomaalida dalkaasi u tagi lahayd inay wax bartaan ama caafimaad ahaan ay u tagaan taasina ay dhibaato iyo ceeb ku tahay dadka Soomaalida ee Turkiga jooga. Dadkii u iman lahaa halkan shaqada ama waxbarashada ama ganacsiga ayaa fiisihii lagu ama caafimaadka oo aynu halkan aad ugu baahanahay oo dadkeena ganacsiyadu la rabay inay yimaadaan oo ka ganacsadaan dadkeena xanuunsan ee waayeelka ah ay halkan yimaadaan dadkaas fiisihii u qoonsanayaan culayska simin waxa loo maleeyaa qof waliba inuu tahriibayo marka dadka tahriibta ka shaqeysta ba horta mushkiladoodan. Intisaar Saalax Xuseen qubanaha VOA magaalada Ankara.